بسم الله الرحمن الرحيم وقيبت أفراد MS Access registration student database sida wada ogsoonahay haddii hore dulmar aan sameeyo qaybta koowaad waxaan ku soo aragnay table qaybta labaadna query qaybta saddexaadna form haddana report waxay kale ahaayeen iyo waxay yihiin iyo sida loo isticmaalo iyo macnaha ay mid kasta ku fadhiyaan iyo tuskii taabsi ayaa u aragtay waxaan ku rajaynaa practical one okay waxaan sameynaa marka report asana markaan sameynayo waa inaa table ii select garaysan yahay kadibna create aan dhaho kadibna aan report aan dhaho reportiga waa kuwana xogtiga waa kuwana okay waa soo printer garay kartaa maaha soo printer garay karaa for example waa kuwana dadka dhan ardayda waa kuwana formkaan oo sameeyey inta magaca qora kartaada oo ka bedeli karo waxaa la tid 2 May saacadu markay saas ahayd page koowaad page labaadna waa kana laana intaana sheet kan qaysa view de report view waa ka halka ku dhifo print preview sidoo ku soo baxayo saasi ku soo baxaa magarad marka waxaan rajaynaa hal qof kaliya daarto daabac karta waxaa rabtaa saa ka sameyn karta isaaf garay asagane close yes table and report halkaa ka fiiri report halkaa ka fiiri form halkaa ka fiiri query halkaa ka fiiri table afartii tusi tabsi ma sameyno xogtii intii kusoo gali marka jadwalka la ka sameysan ka daaradid maadaama hadda student yaa sameey haddana waxaan sameyn karaa employee waxaan sameyn karaa citizen waxaan sameyn karaa allah mustacaan whatever I wanna marka wax araba sameyn karaa kada laga rabaa marka inaa babadashid baahidaada waxaa ku sheelaysid ku celisid wixii su'aalaha qabtid wixii ku dhibo commentiga noo soo reebisa data dhiirigelin waa kaa sugaynaa haddii ay tahay waxa aan qaladnay waa kaaga baahanahay aad baa u mahadsan tahay waan kaaga rajeeyaa waan kaaga mahadceliyaa sida qiimaha iyo qaayaa leh aanu la socotid mar kasta waxaan rajeeyaa inaan isku arki doono qeybaha xigto aad baan u mahadsan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh